salaamu calaykum. Ninkan aad arkaysaan 2003 waxa uu ka mid ahaa ciidamadii loo diray dalka Ciraaq, waxaana uu ka socday ciidamadii dalka Mareykanka. Waana nin Mareykan ah ama askari Mareykan u dhashay. Ninkani waxa uu xoog u necbaa dadka Muslimka ah, waxaana uu dhowr jeer ku taami jiray inuu Muslimiinta xoog u xasuuqo. Bal ka waran ninkaas Muslimiinta neceb oo weliba lagu daray dagaalkii Ciraaq si uu u gumaado Muslimiinta halkaa degan ee reer Ciraaq. Ninkani markii uu tegay halkaa ayaa waxa uu ka sheekeynayaa inuu ahaa nin weliba xoog u dhimay Muslimiin fara badan oo halkaa deganayd. Markii dambe uu ka soo noqday, waxa uu yidhi masaajid ku yaala dalka Mareykanka ayaan dhowr jeer isku dayay inaan gubo ama aan qarxiyo, laakiin iima suurtagelin. Weliba waxaan ugu talagalay inaan baabi'iyo masaajidka. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu yidhi inantayda ayaa xiriir waxay wada yeesheen wiil Muslim ah. Wiilka Muslimka ah ayay isku dheeraadeen oo way kala hadhi waayeen. Dhowr jeer ayaan isku dayay inaan inantayda ka reebo ninka Muslimka ah ee aanan jeclayn. Waxa uu yidhi si walba waan yeelay, way suurtoobi weyday. Waxa uu yidhi maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan tegay masaajidkii ay Muslimiinta oo dhani joogeen ee aan rabay inaan qarxiyo. Waxaan la kulmay quraan macaan oo ka baxaya. Codka quraanka ayay soo jiitay, laakiin ma aan garanayn inay quraan tahay. Waxa uu yidhi markii aan cabaar dhageystay, waxaan isku dayay inaan gudaha galo, laakiin xoog ayaa laygu soo dhaweeyay gudaha. Markii aan la kulmay dadka quruxda badan ee halkan fadhiya ee cibaadaysanaya, waxaan isku dayay inaan wax badan ka barto waxay qabanayaan, laakiin macaan ayay ahayd hawshay hayeen. Waxaan isku dayay markaa inaan aniguna aan bariya ka bacdi diinta Islaamka aan ku soo biiro oo aan shahaada qabsado. Ilaahay ayaa mahaddaas oo dhan ay u sugnaatay. Waxaan maanta mas'uul aan ka ahay masaajidkii aan isku dayay dhowrka jeer inaan qarxiyo ama aan baabi'iyo. Maanta waxaan ahay nin Muslima oo ka raystay dhibaatadii badnayd ee gaalanimada iyo Kiristanka. Waxaan aan ahay nin aan ciil u qabin Muslimka oo maanta garab taagan. Ninkani waxa uu leeyahay mar walba hawsha aad qabanaysaan u fiirsada. Marka aad tihiin dad aanay maskaxdoodu ku filayn, degdega badanna joojiya. Waxa uu yidhi diinta Islaamku waa diin xaq ah. Markii aan bartay, markii aan ku dhaqmay, iyo wax walba sida ay yihiin, Allah subxaanahu wa tacaala keligii ayaa loo daba fadhiisanayaa. Dunidan cid kale ma ay abuurin, cid kalena ma leh. Ilaahayun ayaa iska leh. Allahu akbar. Bal ka waran ninka ugu talagalay inuu masaajidka qarxiyo oo baabi'iyo oo dumiyo, laakiin markii dambe Allah subxaanahu wa tacaala uu qalbigiisa yar ku shubay diinta Islaamka ee macaanka badan leh. Weliba markii uu dhageystay quraanka ayuu waxa uu la yaabay codkan macaan ee quruxda badan ee meesha ka baxaya. Bal inaga Muslimka ah ka waran ee qaar inaga mid ah laga yaabo inaanay weli akhriyin quraanka ama ay ku yartahay inay sanado badan akhriyaan maalin ka mid ah. Subxaanallah. Ilaahay ninkuu doono ayuu ciseeyaa, kuu doonana uu dileeyaa. Allahu akbar. Raggani waxay sidaan meyd ama waxay iska dhigayaan inay meyd soo qaadeen, laakiin fiidiyogan waxa loogu talagalay ama ay xaraabe ka dhiganayaan sidii ay dadka ugu soo bandhigaan, dadkuna ay ugu qoslaan. Laba hablood ayay iska horeysiiyeen, baska ayay labada hablood joojiyeen. Rag baa keenay meyd halkan ay ku sidaan. Baska daaqada ayay rabaan inay ka geliyaan si meydka ay usii qaadaan. Waxaana ay mintalayaan inay leeyihiin meydka waxaan u weynay gaadhi aan ku qaadno ee noo sii dhawey xabaalaha. Laakiin marka ay halkan istaajiyaan ayaa dadku way xaydiidayaan in meydka la saaro baska. Man ogola in bas rakaaba oo ay dadku saaran yihiin in meydka la saaro. Waxay laba tusaale ayaa halkan inooga soo baxay. Iyagu markii ay sameynayeen fiidiyogan waxay ugu talagaleen xaraabe, laakiin waxyaabaha anagu arkay ama iga soo baxay meeshan ayaa si ka duwan noqotay sida iyagu wax u wadaan. Labada hablood ee halkan taagan waxay tusaale u yihiin in basaska ama gawaaridu ay jecel yihiin
inay hablaha markaba u istaagaan. Ta kale, haddii aad dhimatid waxa ku dhaama naxashkaa yar ee lagugu sido ee quruxda badan ee kaasoo noqonaya. oo haddii aad dhimatid adduunkan waxba kama tihid, nolol kale aa kuu bilaabantay, hawl kale aa kuu bilaabantay, caalam kale ayaad tegaysaa. marka intaad adduunka joogtid ayaad wax ka tahay oo aad hebel ka tahay. laakiin marka aad dhimatid ugu yaraan caruurtaadii ayaa waxay odhanaysaa waxaanu kala dhaxlaynaa, ama aynu kala boobaynaa, ama aynu isku dilaynaa hantidii uu ka tegay odagiina dhalay. markaa qiimaha aad leedahay ayaa iska yaraanaya. kabahaagaa ku dhaama, dharkaagaa ku dhaama, cimaamadahaagaa ku dhaama, waxaa qodhan nin kale ayaa gashanaya oo waa lagaa wareejinaya. marka haddaba maadaama sidaa tahay oo ay dadka halkaa saaran oo dhan qofka u soo dega, ama qof yidhaahdo waryaadhahen meydkaanu sii qaadno maanta waa maalintiisii, wuu inaga hooseeyaa, uu geeriyooday, uu jiifaa, ma jirto. qof walba waxuu leeyahay inaga mariya. ugu yaraan ka ku jeceli waa ka ku yidhaahda xabaasha inaga geeya qofka. marka laga tago fiidowgan xaraabihiisa, dhinaca kale inaga waxa uu inoo yahay waano. waxaynu u baahan nahay qof walba inuu alle subxaana watacaala uu isku xidho inta adduunka joogo, oo aanu isqaawin, oo aanu sinaysan, oo aanu dhibaato badan marin. marka waxaad u baahan tahay qof walba oo muslima oo adduunka guudkeeda joogow, intaad adduunkan joogtid inaad xoogga saartid inaad salaadahaaga ilaalisid, in dhowrsanaantaada ilaalisid, in carabkaaga iyo farjigaaga aad ilaalisid. intaas ayaad ku badbaadaysaa maalinta qiyaamaha iyo wax kaloo ka badanba. marka ha isku sii daynina adduunkan, hana noqonina kuwii adduunkan isa siiyey ee ku raaxaystay ee yidhi adduunkan ayaanu leenahay, nolosha yar ee daciifka ee adduunkan ee beryaha ah ee sidaasoo kale lagaga qaadayo, cid walbana ay ku diidayso. markaa fiidowgan waxaan ugu talagalay ama aan usoo qaatay in dhammaantiin ay waano idiin noqoto, aad ku qudrad qaadataan ama aad ku waano qaadataan. dadka baskaa saaran oo dhan ayaa ku diidaya. micnaheedu waxa weeye adduunkan intaad joogtid ayuunbaad ka tahay hebel. markaad dhimatid qofka la sido ee laysku turtuurayo waxa ma dhaantid. waxaa laga yaabaa markaad dhimatid inaad tahay qof qiimo badan, dhinaca rabbina aad qof weyn ka tahay. laakiin dadka adduunkan aad kaga tagtay hantidaadii ayay boobayaan oo waxba kama tihid. markaa diyaargarooba, qof walbaaba ha u diyaargaroobo maalintaa dambe ee qiyaamaha iyo weliba iilka layna dhigayo, oo inaad iska ilaalisaan deybaha laydinku leeyahay ee ay idin cunaysaan, saad doontaanna ka yeelaysaan. waa inaad mar walba iska ilaalisaan in xumaha aad badisaan ama xumuhu uu idinku bato laabihiina iyo qalbiyadiinna. u diyaargarooba maalinta dambe iyo qiyaamaha. mar walbana waanadu waxay u fiican tahay innaga, waayo xawayaanka waxa u fiican in geedaha iyo adhiga waxa u fiican in geedaha iyo beeraha iyo meelaha cagaarka ah lagu sii daayo si ay ugu raaxaystaan, qalbigooduna ugu xasilo. laakiin innaga waynu ka duwannahay sidaa. waanadu waxay u fiican tahay qalbiga, waxaana ay mar walba inoo tahay deganaan iyo xasilooni aynu ku qaadanayno intaynu adduunka joogno, si aynu ugu dhowaano maalinta qiyaamaha. ugu yaraan aynu naarta iyo dabka iskaga ilaalino. halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa. waa Cali Cabdiraxmaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.